السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك دمانتين walaalayaal waa walaalkin maxamuud laag waxaan hadduu eebbaha awoodda la ogolaado soo gudbin doonaa qiso ka hadlayso abubakar sadiiq radiyallahu canhu. sayidina abubakar waxa uu ahaa bini'aadamka ugu qiimaha iyo khayrka badnaa ee dunida dul socday abid, kaasoo aan ahayn rasuul sida uu xabiibku noo sheegay. abubakar radiyallahu canhu waxa uu ahaa koobiga ama shabaha rasuulka sallallahu calayhi wasallam. waxa uu dadkoo dhan ku dhaafay deeqsinimada, xishoodka, salaada, sadaqada, quraan akhriska. waxa uu dadkoo dhan ku dhaafay wax kasta oo khayr ah. saas darteed ayuu Cumar bin Khataab wuxuu yidhi kaana sabaaqan likulli khayr. haddiiba aad ka fikirto camal wanaagsan, abubakar ayaaba mar hore sameeyey. balse arrinta cajiibka ayaa ahayd inuu ahaa saadiq run sheeg ah. waxa uu ahaa shakhsi run sheegistiisu uu ka marag kacay rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam. abubakar radiyallahu canhu waxa uu ahaa saxaabi ka run sheegay rumaynta eebbe iyo rasuulkiisa. abubakar maalinkii uu nebigu u soo bandhigay islaamka horey ayuu ka shahaatay. isla maalintii waxa uu diinta ku soo biiriyey saxaabiyo waaweyn oo ay ka mid yihiin Talxa, Zubayr, Cuthmaan, Cabdiraxmaan ibnu Cawf. waxa uu sabab u ahaa shahaadadooda ka badan nus 10 saxaabi ee iyagoo nool jannada loogu ballan qaaday. arrinta aan diiradda saarayna ayaa ah sida uu u jeclaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam. waxa uu ahaa nin mar kasta oo nebiga lagu waxyeelayo meelaha facshirka ah u bareera inuu difaaco rasuulka sallallahu calayhi wasallam, asagoo aan lahayn awood saas u badan oo ay aad u garaacaan mushrikiinta ilaa uu miyir daboolmo. oo xataa hooyadii markay aragto ay garan waayi jirtay bararka ka muuqda wejigiisa. haddana marka uu miyirsado oo soo laabmo waxa uu dhihi jiray awe rasuulkii, asagoo aan ka fikirin caafimaadkiisa. wuxuu dhihi jiray waxaan rabaa inaan arka rasuulka sallallahu calayhi wasallam. hooyadii ayaa dooni jirtay inay caawiso cunto iyo wax uu u baahan yahayna ay siiso si uu u socdo oo u soo kabto, balse intuu diiday ayuu dhihi jiray waxaan rabaa inaan aado Daarul Arqam, meel uu nebigu sallallahu calayhi wasallam fariisan jiray, si aan rasuulka u arko oo aan ogaado inuu caafimaad qabay in kale. maalin maalmaha ka mid ah rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa imaaday guriga abubakar radiyallahu canhu, asagoo go'aansaday inuu la hijroodo xilli ay xaaladdu ka adkeyd rasuulka oo mushrikiinta Maka iyo dunida dhami ay doonayeen inay dilaan. rasuulka ayaa ku yidhi abubakar waxaan rabaa inaad raacdo safarkan. kuma dhahayo rasuulka ilaah ayaan ahay oo safarkan wuu fudud yahay waxaana raaci ciidan ina ilaaliyo, balse waa safar aan ku waayi karno nafaheenna. abubakar uma buuqan khatartaas oo dhan. waxa uu la dhacay oohin farxadeed, asagoo ku farxay wehelinta saaxiibkiisa uu jeclaa. ummuna Caaisha radiyallahu canhu ayaa tiri waan maqli jiray in dadku farxad la ooyaan, balse ma fahmin ilaa aan ku arkay aabbahay abubakar maalintaas. abubakar ayaa farxad darteed nebiga inta uu soo qabtay oo laabta geliyey ku yidhi waan ku raaci rasuulkii allow. waxaa maqlay mushrikiintii Maka inay baxeen, wayna ka daba baxeen. rasuulka iyo saaxiibkii ayaa galay god ay kaga gabanayeen cadowga. rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo daalan ayaa ku yargamay godkii ay ku jireen dhexdiisa, balse abubakar oo soo jeeday ayaa arkay xangarale godkii ka mid ah dhexdiisa ka soo baxaya, wuxuuna ooga baqay inuu rasuulka qaniino. kadibna waxa uu ku jafay lugtiisa, wuuna qaniinay, mana nuuxsan si uunan u kicin rasuulka sallallahu calayhi wasallam. balse nasiib wanaag ilintii ka timid abubakar xanuunka dartiis ayaa rasuulka ku dhacday iyadoo toosisay. kalgacaylka uu u qabay abubakar radiyallahu canhu rasuulka waxay ahayd mid aan maskaxdeennu sawiri karin. waxaa jirtay qasiido uu yidhi abubakar oo dhahaysa waxaa bukooday xabiibkaygii waan booqday, waana bukooday sababtoo ah waxaan arkay asagoo buka. sidoo kale waan bukooday waxaana isoo booqday xabiibkaygii, waan bogsooday indhahaygu markay qabteen asagoo caafimaad qaba. subxaana allah, saas oo dhan ayuu u jeclaa rasuulka abubakar ilaa uu la wadaaga xanuun iyo caafimaad labaduba. taas ayaana sabab u ahayd in rasuulku ammaani jiray abubakar radiyallahu canhu. rasuulka khudbadiisu u dambeysay abubakar wuxuu fahmay in rasuulku dhiman rabo, asagoo iska ilmeeyey. rasuulka ayaa amray in albaabada masaajidada ku furan ee saxaabada dhammaan la xidho,
ilaa kan Abubakar mooye. wuxuuna yidhi rasuulku sallallahu calayhi wasallam, waxaan karnay inaan u abaalgudno qof kasta oo wax noo qabtay, balse maanan awoodin inaan u abaalgudno Abubakar Sidiiq radiyallahu canhu. subxaanallah, bal fiiri rasuulka ilaahay oo leh waan u gudi waayey abaalkii Abubakar, sababtuna ay ahayd in Abubakar rasuulka jeclaa, naf iyo maalna la garab taagnaa. waxaa dhacday in Abubakar aabbihii Abu Quhaafa uu marka uu dhimanayay ku yidhi, aabbo ashahaado, asagoo ashahaatay oo islaamnimo ku dhintay. arrintaas oo ahayd inay aad u farxad geliso Abubakar ma dhicin oo ilin ayaa ka soo qubatay Abubakar radiyallahu canhu. waxaana la weydiiyey, maxaad la ooyeysaa Abubakarow? wuxuuna yidhi, waxaan xasuustay xabiibkayga markuu adeerkii Abu Taalib uu dhimanayay, juhdiga uu geliyey inuu muslimnimo ku dhinto, balse ma suurtagelin, rasuulkuna wuu ka xumaaday. waxaan rajeeyey in xilligan meeshan aan anigu taaganahay rasuulku ahaado si uu u farxo. subxaanallah, xubbiga intaa la eg walaalday, naftiisa ayuu ka jeclaa rasuulka Abubakar radiyallahu canhu. waxay tahay inaan isweydiinno, intee in la eg ayaan jecelnahay xabiibkeenna sallallahu calayhi wasallam? taas ayaa ku noqon karnaa maciise. Abubakar radiyallahu canhu wuxuu toosay aroor asagoo da'diisu ahayd 63. maalin isniina wuxuu dareemay inuu qandhoonayo, wuxuuna xaqiiqsaday inay tiisii taagan tahay. waxayna ahayd maalinkii uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam geeriyooday. da'dii uu rasuulku ku geeriyooday wuxuuna qoyskiisa weydiistay in lagu kanfo isla dharkii xabiibka sallallahu calayhi wasallam lagu kanfay, isaga oo lagu xabaalay meel midigta ka xigta rasuulka sidii uu midigtiisa u ahaa markuu noolaa. subxaanallah, waxaan ku soo gebagabeynayaa xadiiskan. nin ayaa u yimid rasuulka sallallahu calayhi wasallam asagoo ka codsaday inuu jannada rafiiq kula noqdo. rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa weydiiyey, maxaad diyaarsatay? wuxuuna ku yidhi, salaad badan iyo soom badan ma diyaarsanin. waxa kaliya aan ogahay inaan ku jeclahay rasuulkii allow. rasuulka alla sallallahu calayhi wasallam ayaa ku yidhi, waxaad maciisa ahaan doontaa midkaad jeceshahay. intee ayaan jecelnahay allah casa wajal? intee in la eg ayaanse jecelnahay rasuulka sallallahu calayhi wasallam? xubbigaa la'aantiis ma helayno janno. ilaahay ha inaga dhigo kuwa si dhab ah u jecel allah iyo rasuulkiisa. waxaan ka cudur daaranayaa inaanan lahayn cilmi diini ah oo badan. waxaan jeclaystay oo keliya inaan idinla wadaago muuqaalkan oo aan soo diyaariyey. marka walaalayaal, wixii aan sahay waxay ka ahaatay ilaahay iyo rasuulkiisa, wixii aan khaldayna waxay ka sugnaatay naftayda iyo shaydaan. waa walaalkin Maxamuud Laag oo idin leh Ramadaan mubaarak meel walbo aad joogtaan. caabuqa ilaahay caafimaad ha inoogu bedelo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.